السلام الله عليكم أصحابي باتوا برنامجكي أركتي دادوينه dad fara badan karbaash fara badan iyo qosol fara badan maanta waa diyaar saaxiibkay USB iyo akhyaar fara badan baa maanta barnaamijka casuuman hadii aan ugu cusubtahay subscribe taadu waa dhiirigelin like taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagsaa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan waa tahay 200 oo kun wali ma gelin 180 kun 182 kun baa madaxa gelinayna waxa naga dhiban waa 18 kun laakiin si maadaama dadaasheen saraakiisha oo 18 kun kaliya naga dhiman tahay saddex barnaamij baa idinku ciidamadayaa laakiin sida saxda ah maadaama 100 iyo wadadii 200 saaranahay inaan laba barnaamij kaliya idinku ciidamadayaa laas waa idinku qaadanaya waxa idin la dhaqmayaa sidii inaan wadadii 300 saaranahay saddex barnaamij baa idinku ciidamadayaa barnaamijka aragtida dadweynaha saaxiibkay USB waa maanta marti ku ah waxay xaalado fara badan iskaablo karbaashkiina iyo nidaamkiina oo idin wada istiji barnaamijka aragtida dadweynaha xoog waxa ku iskaablo wala yaa barahay maalin kasta meel la jabsanaya bismillah yahay bal muuqaalka koobaad intaan USB iyo iskaablo u gaarin barnaamijka ilaa idin kaga qoslinayo bal hal mar ay isla daawano qalbigu ima yeelaya qasaarinay alaaqato ka tagay waxaad isweydiinaysaa wasiirku maanta ma wareeray maxaa iska galay bisadahan iyo curigaar iyo maxaa iska galay barnaamijka aragtida dadweynaha commentiskii loo qoray kaliyaha kaadi hal mar commentiskii loo qoray aan dul istaagno waayahay maadaama saddex barnaamij meesha aan ku soo koobayna muddo yar baas camal baa comments u rideynaa hanaga hareena la soo waaya commentiga koobaad si la ku nool soo guursata akaroon hore u soo qaaliba tahayaan lagu qorsa wallahi billahi dumarka social media qaybta commentiska iyaga xog ku haysto bismillah allah inantu fariidsana waa anigoo yaan yuura romantic xuma ayaa looga tagay curigaas naag waa qiyaano kaliya ama bisad ha ahaato ama naag caadi ah ama xataa dool ah way ku fiican tahay curigaas curiga maxaa kala xifaal wardumarow idinka xifaaltaga xataa curiga mid la ku xumeen ay isugu sii xoqay arxaleema bisada ilaahu door ka Soomaaliya sharaftooda iyo karaamadooda iyo kaftankooda iyo qosolkooda ha naga qaadin we love you dumarka Soomaaliyeed comments idinka xog ku haysto waa idinka fuuqna waayahay intaas uma dhaafayo maadaama waqti aad noogu yar yahay waxaan u gudbeynaa ninkii saaxiibkay ahay USB waa loo daatay remember kan ilaa baa soo qaatay bal hal mar muuqaal korta lagu soo qabtay aan daawano remember la ilaha illa allah commentiga waxaan nagula wadaagtaan dadkii saaxiibkay USB asaga xataa commentiga soo qoray laakiinse ninkan USB idin la muuqda mise qofka dad fara badan oo shabahan oo isku egeen baa jiree xariif is shabahan oo isku egyihiin yaraantiisi waay bal commentiga nagula wadaag ama USB ama no USB commentiga nagu soo qor waayahay commentiyada loogu daatay ee lagu karbaashay waan fiireynaa waayahay commentiga koowaad waxa soo qoray USB wuxuu taagan yahay Photoshop waaye madaxaas animali reer akhiraad tubilaad sawirkan asoo qarax dhacayo ma laga haddaad fool xun tahay haniya jabin weligaa macnaha isdhiibin uu ninkaan taagan yahay mar waa kala kacay shakil aan waay lugihiisa isma bedelin horta soo walaal run sheeg haddii kaasiba sidaas isku bedelay hadda noloshu waa iska easy sababtoo ah wuxuu taagan yahay ninkaan nolosh macnaha waxa waa iyada ku soo raadsanayso waa kala kacay la shaka waa taagan yahay waa dii uu ninkaas USB yahay ninka wuxuu taagan yahay wax kale ku qoslin waxaan ku qoslin uu taagan yahay tusbax ayaga gadan camal oo aniga muuqaalkan wallahi 3 mar camal 4 mar waa fiirsaday tusbax inuu USB wato wallahi sawirkan mid adduun lagu galay ma aha hadda xagee loo oreeyaa rasuulullah waxaan dambaabin wareer comedy saa wax u jafaysaan bahasha dambi idin la galay sawirkan hadda adduun lagu qaaday aakhir ma lagu qaaday waayahay qaybtan waa qaybta iskaabulada iskaabulo ayaga meel u daataan dad aroos iyo
dad waxa waaye jawi ku jira iyo ma cafiyaan. waxay soo heleen xariif oday ah oo dhaarsan oo 70 jir oo xabad gacanta jiidanay oo muuqaalka ila daawaday in kaga sheekayna hal mar muuqaalka ila daawado. arooskaas aad arkaysaan oo sharaftii karaamada lagu galbiyay commentiskii loo qoray marka hal mar aan isla fiirin. naagtu wuxuu u jeedayaa sidoo inuu xabsi u wado. macnaha waxay ku dhagan yihiin heed iska hawo qofta ninka suu u jeeday la yaabeen wararka naagta ka reeba see looga reebaa taashii ba gashan tahay ayadaaba diyaarsan. arka dhiga hadday sheekada hadda sidaan tahay qolka haddii la tagana ka daran arka gaara ka dumar u fiiriye dumar iska habulo gabadhaan ayada taa xiran fiyoore u wixii gacanta ku wadataa diyaar waay ma arkayso si diyaarsanta ayada xataa degdega ku jiro wiilka walakin uu dhaarsan yahay waqti haba ku yarbo see u dhaarsanaan waa qarasha ka baxay qarash yaamil bunki cuno budbudka hay hooyoy waa kuftaa u maleynaa bisinka hirrig ah war darbiyada ku sidoo wax leeyahay axadkani sawkan inantiiba ridi gaaray bal adeer ayr istaji ma bariis baa ka qaboobayo maya baasta ka kulaanayso sheeka ku jirtaan idinka fiiri dumarow waxa waaye 250 waxa waaye garaam oo dahab nagala bixiyo darbiyada ma aha qabuura haweenta ayaa mees soo gashaa u maleynaa kadibna kala orday ayaa ka dhacday. qofkaana ugu fikir macquulsan haween meesha hadii soo gasho ma la jooga ayada waxay ku soo galay qadwaan wadatee madax intay ka bilaabay. waayahay barnaamijkii aragtida dadweynaha oo ay idinku soo qaadayay 3 barnaamij waxa waaye intaasan kusoo gabagabeynaa. comments-ka waa yareenaya sababta ma taqaanaa xaq uma leedin inaan 3 barnaamij idin soo diyaariyo oo ku qaatay. comments-ka waa idinka yareenaya marka si 200 oo ku loo gaaro adiga walaalkay haddaana daawanaysid hadda oo aad qososho oo farxad ku sii subscribe ma iga cilciile. dib mala istijiya saraakiisha garabkayga taagan aynu waa ogahay waxa waaye qofka ay saraakiisha garabkiisa taagan yihiin subscribe iyo like iyo comment waa ka dhisay. waayahay barnaamijkii intaas aan kusoo gabagabeynay haddii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigana fikirkaaga noo wadaasa inta ku midon barnaamij kalmida oo si karimaa gudaas maamulka Soomaaliya shalmay idin leh ciao ciao